salaamaya idaacadda. marka ku xigta dawladdu inay guulaysato ayada iyo dawladihii ka dambeeyeyba waxaa hortaagnaa waxa weeye dhibaatadii dalku soo maray, dagaalkii ahliga ahaa, iska soo horjeedka dadku iska soo horjeeday, dawladnimadii burburtay soo celinteeda oo aan arrin hawl yar ahayn. ha yeeshee haddana inkastoo sidaas tahay laga bilaabo dawladdii anigu aan ahay ka noqday madaxweynaha, waxaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ay ahaayeen qarankii Soomaaliyeed magaciisii iyo calankiisiina in adduunka meel walba qaramada midoobay aan ka taagnay oo anigu ka khudbeeyey dal jira iyo dad jirana aan noqonnay. dabadeedna la ictiraafsan yahay oo safaaradaha adduunku ay ictiraafsan yihiin iyo dawladaha adduunkuba. sidaasna waxay ahayd dhinaca fiican. dhinaca kalena wuxuu ahaa dhinaca qabqablayaal dagaal oo dawladdii ka soo horjeeday inay mar walba dhibaato keenayeen. ha yeeshee akharkii kuwaasuna waa socdeen. dabadeedna dawlado kale ayaa soo baxay. haatanna waxaan rajaynaynaa in xaaladdu isbeddel dhaco oo dalka iyo dadkuba degaan. Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, sida aad la socoto siyaasiyiinta Soomaalida iyo koox kasta oo marka ay qabato xukunka waxa ku adag in ay ku guulaysato dib u soo celinta qarankii Soomaaliya. xeelerayaashu waxay isweydiinayaan maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa oo hortaagan ummadda Soomaaliyeed inay dib ay u yeesho ama ay dib u dhisato dawladnimadeedii. ummadda Soomaaliyeed qarannimadeedii waa soo noqotay. waaniga kuu sheegay waxaan ku yidhi caalamka oo dhan calankii waa ka taagan yahay adiga qaramada midoobe hadday tahay iyo isha hadday tahay meel kastay tahay. dalka gudihiisa markii la joogana haba ahaata dawlad goboleedye sidii hore dalku ma aha. qabqablayaal dagaal kama taliyaane waxaa ka taliya dad muxuu ahaaye siyaasiyiin u badan. xaaladuna sidii hore ma aha. ha yeeshee weli 100% lama gaarin. haddii dalalka dagaalku ka dhacaana mudday qaadataa mar walba in uu dalku meeshii la rabay gaaro. waxaan ka hadlayaa hay-adaha dawladda kala duwan, qarannimada marka halbeeg la saarayo. ilaa iyo hadda dalka Soomaaliya uma dhisna hay-adaha dawladnimada. wixii ka dambeeyey dawladdii Siyaad Barre ma aysan soo marin dawlad wada xukunta dalka guud ahaan. marka arrimahaasi sidee ayaa lagu heli karaa isleeda adigoo soo koobaya? waxa weeye taas waxaa keenaya burburkii dhacay ayaa keenaya hay-adihii sidii la rabay si ay ku noqdaan waqti qaadataa. dalku markii uu xorriyada qaatay lixdamaadkii ilaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre ayaa la soo dhisahayey. muddo badan ayay soo qaadatay in wax walba la yegleelo. dabadeedna waa burburtay. burburkii markuu dhacayna wax allaale wixii dalku haystay ayaa burburay oo qarannimada astaanta u ahaa. haatanna muddo markii aan anagu qabana xukunka ilaa maantana waa soo socotay arrintu. waxaanan rajaynaynaa inay dhabar fiican ku socoto. dadweynuhuna inta dagaalkii iyo qabyaaladii iyo wixii ka soo noqdo qarannimadooda iyo dawladnimadooda inay usoo laabtaan oo dawladooda la shaqeeyaan. wixii qaladaha ay gashana ay ka saxaan, wixii wanaagsanna ay soo dhaweeyaan. dhinaca kale ma moodaa madaxda haatan hogaaminaysa dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay wajahayaan caqabadihii ay wajaheen dawladdaada iyo dawladihii ku-meel gaarka ee ka dambeeyey? kulli caqabadu waa jirayaan. ma aha caqabadihii annagu aan wajahayna wajihi maayaan oo dee warwaaradii anigu berigii aan joogay dalka gobolka Xamar dhinac u xukumaya ama qabaa'ilka ahaa maanta ma jiraan. dalkiina dawlad goboleedyo meelaha iyo dawladda dhexe oo caasimadiya weeye laba isma laha. marka ha yeeshee dhibaato waa jiraysaa. kulley mucaarad waa jiraya. taa kuwa baarlamaanka ku jira ama kuwa sanadka ku jira ayaa mucaarad noqonaya. mucaaradkana lama diidanee waxaa la rabaa mucaaradku inuu yahay mucaarad xaq ah oo wax fiican ku hadlaya oo waxa jira oo dhibaatada sheegaya oo waxaas hala toosiyo. haddaan la toosina mucaarad ayaan ku noqonaynaa. mucaarad saas u samaynaya oo asaga laftiisa dhismaha dalka raba inuu ka qayb qaato ayaa la rabaa inuu noqdo mucaaradku. lama rabo mucaarad inuu dalku baaboo ama dawladdu dhacdo shaqadiisu tahay. marka waxaan rajaynaynaa gacmaha inta la isqabsado sida ay haatan tahay arrintu si kasii fiican haddana inay noqoto. dalkuna uu sidaas ku dhismo. dadweynuhuna ay wixii qaladahoo jira oo dawladda ka jirana ay u sheegaan oo si cadaalada ama si waxgarad ah dhaba fiican inta loo maro loo sheego la yidhaha qaladaadkaasaa jira laga baxo. dawladduna ay dadkeeda xurmayso, soo dhaweyso, la tashato ayaan rajaynaya.
ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan inaan ku weydiiyo sida ayay Soomaalida ay ku heli karaan dawlad ay hay-adaheeda ay u dhameystiran yihiin xilli ay joogaan ciidamada AMISOM isla markaasina dalka ay ka jiraan waxaa loogu yeero dawlad goboleedyada ama nidaamka Soomaalida ay qaateen ee federaalka. Hadee nidaamkan federaalka waa jira adduunka inkastoo annagu aanan soo marin haatanna goboladii kolley maamul bay leeyihiin maamulkaasuna wuxuu qaban karayo waa qabtaa marka waxaan shaki lahayn in haddii si fiican laysu afkarto oo maamul goboleedyadu dawladooda ay la shaqeeyaan inaan ka baxayno wax kastoo dhibaataa haystana inaan ka baxayno dalkuna dal midaysan uu noqonayo markaasna haddii alla yidhaaho khayraadka dalka ku jira oo batroolku ugu weyn yahay sida la sheegay in la qaybsado oo Soomaaliya ay dal barwaaqa oo nabada noqoto ayaan rajaynaynaa marka si taasu ku timaadana sida aan anigu walba hameen walba ilaahay u baryahayo ilaahay ha loo baryo marka hore Allah ha la baryo ilaahay ha loo soo noqdo hana laysu tanaasulo ha lays xurmeeyo dawladuna dadka ha xurmayso dadkuna dawladda ha xurmeeyo cadaaladna ha lagu dhaqo yaan cadaalad darro lagu dhaqin iyo qabyaalad toona